بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله الأطهار وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم جميعا. وإذا سلام يا مركوري سلام دي وحن سواها إن كتاب كهاللي هلقي إمام أحمد قري رحمة الله عليه. وحن سواها إن يسدي شوق ونوسه ودي دجال الذي يرينا يودحيي qoladii maamulka haysatay reer Sacdudiin ama Suldaan Abu Bakar ninkii la oran jiray iyo ciidankii uu watay Garaad Abuun dagaal baa dhex maray. Garaad Abuun waa tii la dilay, nin Cumar Diin la yiraahdo iyo ciidan yar oo Imaam Axmed Gurey uu ka tirsan yahay baa baxsaday. ciidankaas oo meel cidla joogaya waxa dhacday nimanka amxarada baa soo duulay, dad muslimiin bay waxyeeleeyeen. kadibna ciidankii yaraa oo kuwii muslimiinta ah falaagada ka ahaa baa ciidankii ka daba tagay. dagaalkaasina soo waa dagaalkii ugu horeeyay oo halgankaas uu ka dhaco. marka wuxuu ka soo sheekiyay sheekhu meeshii ay joogno ka bilaabna wuxuu ka soo sheekiyay khasaarihii nimankii amxarada ahaa oo dadka muslimiinta ku soo duulay la gaarsiiyay oo ay u geysteen raggii uu hogaaminayay ninka la yiraahdo Cumar Diin oo uu ku jiro marka Imaam Axmed Gurey askarta ninkaasi uu madaxda u yahay ay kamid tahay. kadibna waxaynu ku joogsanay khasaarihii nimanka loo geystay iyo dhibaatadii dagaalka ka soo gaadhay ay iyagu soo bilaabeen. marka wuxuu rabaa marka inuu haddana u noqdo muslimiintana ay sidii wax u gaareen. marka wuxuu yiri wansana almuslimuuna raajiciina farixiina mustabshiriina ila baladin yusamma Zifa. wuxuu dadkii muslimiinta ahaa dagaalkaasi ka soo gadoomeen ayagoo faraxsan oo ay ka soo noqdeen dagaalkaas ayagoo faraxsan oo bishaaraysanaya. waxayna yimaadeen magaalo la yiraahdo Zifa oo u dhow buu leeyahay Suldaan Abu Bakar kii ay imaamka ishayeen magaaladii uu deganaa wadankiisii meel u dhow weeyay meeshaasay ku soo noqdeen. kadibna wuxuu yiri dadkii muslimiinta ee dagaalka galay ee Cumar Diin watay Imaam Axmedna askarta uu ka mid yahay wuxuu yiri walam yuqtal minhum ahad, ayaga wax dhibaatay meesha kama soo gaarin. kadib waxa dhacday marka suldaankii maadaama ay tuulo yaro u dhow ay soo degeen wuxuu fasamica sultaanu was-Soomaali alladhiina macahu bikhabarihim wa billadhi fa'aluhu min jihaad al-kuffar wal-ghanaim. wuxuu suldaanka iyo dadkii Soomaalida ahaayo suldaanka la jiray ayaa waxay maqleen Cumar Diin iyo Axmed Gurey ciidamadii ay wateen warkoodii bay maqleen inay gaaladii ka daba tageen oo kuwii muslimiinta waxyeeleeyeen ay ka daba duuleen. kadibna ay wax badan ka laayeen, farda badanna ka soo qabsadeen, wax alaale waxa ay muslimiinta u geysteen ka soo celiyeen. warkaasaa nimankii gaaray. awal niman baar la baxay oo ciidankan yarka oo wiilasha yarka ay wataan waa qabanana bay lahaayeen. faxiina idin daakhalahu al-jaz'u wal-fasac. wuxuu arrintaa warkooda markuu soo gaaray nimanka argagax iyo dhulgariir baa ku dhacay, waa qaadan waaye. nimankii yarka ahaa oo aan tirada badan ba lahayn sidee bay buusha inta lagu soo hoyeen. kadibna suldaankii meeshii intuu fadhiyi waayey wa kharaja haariban min al-bilad. meeshii uu haystay uu ka cararayba. Soomaalidu macahu Soomaali mufsidiin oo qudaac duruq oo ciidan ka badan oo qabaa'il badan baa la socotay. iyagoo dhamma waa carray waxay kuwan haddii nimankii ay ogeyn ay jabiyeen innaga bay noo daahimayaan. suldaankii iyo raggii la socday waxay u carareen buu yiri ilaa baladin yusamma Kudaad iyo Kudaad. meeshan waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo intaanaan qisadan aad u gelin. kow halkan waxaad ogaataa halkan waa dheeraan doonaa sida aynu arki doonno. horta waxaad ogaataan kow dagaalka amxaara bilowday. labo waxaad ogaataan amxaaradu markasta waxay muslimiinta ku soo duuli jireen bariga Afrika markay ogaadaan iyagu inay isleenayaan oo ishayaan. taaniskaasay eegtaa mar haddii ayagu ay muslimiinta fooda isgeliyaan oo ay isku mashquulaan nimankaas taaniskooda banaanku yaalla. midda labaad waxa weeye midda saddexaad waxa weeye ninkan suldaanka ah oo Suldaan Abu Bakar oo ay nimankan hadda ishayaan isagu uma jeedo inuu amxaaradan iyo muslimiintan iyo u hiiliyo. wuxuu u jeedaa inuu kursigiisa ilaashado wax alaala wixii ku dhaqaaqaya inay wadanka ummadda cizigeeda iyo midnimadeeda soo celiyaan iyagu duulaan ku yahay. amxaarada xataa inuu ka daba tago ma rabo. kadibna hawshaasaa bilaabatay. ninkii suldaanka markuu hawshaa maqlay waa cararay isaga iyo Soomaalida la socdo. Soomaalida marka u fiirso marka hore systemka iyo dawladda jirtay ha saxsanaato ha khaldanaato iyaga iskala socdaan laana waa dad cawaan reer baadiye u badan. suldaankaas mufsidka ah oo wadanka qaribay bay taageersan yihiin oo la socdaan. laakiin markii adduunku isbedelo oo ninka kabihiisa cirka loo tuuro wuxuu dhami waa soo dilaabaya iyagoo Axmed Gurey dabadooda arki doona wuxuu dhan. marka wuxuu yiri suldaankii markuu cararay Soomaalidii la socotayna ay raacday waxay degeen ilaa baladii yusamma Kudaad. waxaan rabaa kale inaan baraarujiyo imaamkuna wuxuu soo sheegay inuu yiri Zifa ayuu yimi, kana wuxuu yiri Kudaad buu tegey. amaakinta ku soo aroortay kitaabkan waa meesha ugu mushkilka badan kitaabkan. meelahaasi meelaha ay ku kala yaalaan iyo meelaha ay ka dhacayaan wadamada wadanka halgankaasi uu ka dhacay aad baa loogu mashquulay. magacyadana waa la wada bedelay lama yaqaano. marka wuxuu leeyahay suldaankii iyo raggii la socdo Soomaalida ah Kudaad bay u carareen oo Kudaad wuxuu leeyahay marka min bilaadi Soomaal bay ka mid tahay waa dhulkii Soomaalidu ay degi jirtay. فسمع الإمام أحمد بن إبراهيم وأصحابه بخبر السلطان والصومالي وبخروجه من البلاد فسار هو وأصحابه وراءهم. وغير الإمام أحمد قري وركي سوق قال إنه كنا ماشي كعرين وبقين isaga iyo ragii la socday ayaa warkaa helay
waxay heleen buu yidhi suldaanka khabarkiisii iyo soomaalidii la socotay inay meesha ka carareen oo ay waddankii ay ka baqeen kadibna wuxuu yidhi imaamka iyo raggii la socday oo dagaalkii hore kusoo guulaystay nimankii bay dabagaleen isaga iyo raggiisa waa dabagaleen wawasaluu kudaad meeshii kudaad ahayd oo suldaanku digay ayay gaareen watalaaquuhum wasuldaanu wasomaalu fii mawdicin yusala qaran suldaankii iyo imaam axmed guri ciidankiisii iyo soomaalidii suldaanka la socotay waxay isugu yimaadeen oo ku kulmeen meel la yidhahda qaran wuxuu yidhi waa nahrun kasiirulmaa wakta duhri xilligaa salaada duhur la tukado waa webi weyn oo biyo badan salaada duhur markay tahay baa meeshaa la isugu horiyey faxiina idin tasaafuu faqtataluu halkaasaa ciidamadii labadaas dhinac laysu saftay dagaal baana ka dhacay fanhasama sudaanu wa soomaal suldaankii abubakar iyo raggii waa tabay iyo soomaalidii la socotay waqutila minhum jamaaca rag xoogaayana waa laga laayay waqanima alimaamu min khuyuulihim 30 farasan fardihii iyo wixii ay wateenna 30 faras baa imaamku maalintaa ka qabsaday wa akhrabuu bilaadahum wa nahabuu nahaban kasiira deegaamadii ay deganaayeen oo soomaalidin iyo suldaankii la socotayna dul cagtay mariyeen weeye kabtooday cirka u tuureen wax allaala waxay arkaan waa laayeen wax allaala waxay arkaanna waa dhaceen wuxuu yidhi kadib wansan alimaamu wa asxaabuhu raajicuna ilaa bilaadihim harar maadaama uu magaalada harar oo maamul ka dhisnaa uu ninkii suldaanka iyo raggii ciidankiisa ay ka carareen imaamkuna uu ninkii cayriyey imaamku wuxuu kusoo noqday magaaladii harar buu soo degay oo min bari sacdiin ka mid ah falam yastaqiruu biljuluusi xataa samica suldaan abubakar cala alimaami axmed wa asxaabuhu aljumuc wuxuu yidhi imaam axmed gurey meeshii muddo badanba ma uusan joogin ilaa markiiba wuxuu maqlay ninkii suldaan abubakar ahaa wuxuu imaamku usoo urursaday ciidamo aad u tiro badan wajayaja aljuyuusha min asoomaali wa kayrihim ciidamo badan buu soo urursaday oo soomaali iyo dad kaloo la socdaa fakaanat khuyuuluhum wa juyuushahum laa yaxsabuhum xaasib fardahooda iyo ciidankooduna wuxuu ahaa waxaan cidhibo tiri karin say u tiro badan yihiin wa ataa saa'iran lilbilaad acni harar kadibna waa yimi asagoo waddankii harar oo imaamku deganaa u socda fasamaca alimaamu wa asxaabuhu biwusuulihim imaamkii iyo raggiisii marka nimanka warkoodii waa maqleen inay soo gaareen ayay maqleen faakhalluu lahum albilaad waddankii baa uga baxeen meeshii waa loo firaaqeeyey maadaama arkeen ciidankan inay fooda gelin karin wasaaruu ilaa bilaadin yusamaa hoobad sarbad meel la yidhahda ayaa imaamka iyo ciidankiisii aadeen wa kaana fii hoobad wuxuu yidhi jabalun cadiim meesha hoobad la yidhaahdo waxaa ku yaalla biyo buur weyn farakabuu cala aljabal buurtii bay u baxeen ciidankadii meel ay isleeyihiin idinkuma imaan karo waa ku dagaalami kartaan imaamku markuu hawshaa maqlay fasamaca alimaamu bikhabarihim wasaara waraa'ahum min aljabal waa ka daba tegey warkoodii markuu maqlay ilaa buurtii uu ku gaaray waxaa sarahum calayhi buurtii ku hareerayey isku yar baa lagaga qabtay buurtii ciidankii axmed guri watay markaa madax ciidanka waxa oo cumar diin axmed wuxuu ka mid yahay ama imaamku wuxuu ka mid yahay ciidanka cumar diin ee marka horena garaad abban watay ee laga dilay kadibna wuxuu wadayaqa calayhim bilxisaari 17 yawman meeshaas ayaa lagu ciriiriyey ayaa waxa lagaga qabtay xisaarka waxa la yidhahdaa waa in la hareereeyo meeshii baa lagu hareereeyey dhowr iyo 10 maalmood baa nimankaasi buurta ku jireen oo lagu hareereysnaa faxiinaidin intaciqa alimaamu wa asxaabuhu min alxisaar imaamka iyo raggii la socday hareerayntii ayay ka noogeen oo meesha waa lagu baaba'aya raashinkii iyo wixii o dhan waa dhammaadeen dhowr iyo 10 maalmood bay buurta saarayeen kadibna waxay sameeyeen fanazaluu min aljabali bileyl habeen bay buurtii ka degeen waqtataluu qitaalan shadiidan kadibna dagaal culus baa nimankii dhex maray fanhasama asxaabu limaam imaamka axmed gurey iyo raggii la socday ayaa laga adkaaday oo jabay waqutila amiiruhum cumardiin ninkii cumardiin la ohan jiray oo ciidanka o dhan watayna habeenkaasaa la dilay alladii kaana amruhum ilayhi raxmatullahi caleyh waa ninkii taladoo dhan ay gacanta ugu jirtay ciidanka hogaaminaya rajaca alimaamu huwa wa asxaabuhu maalintaasuu hogaamiye ciidankaa yidhi fallaagada imaamku axmed guri ka bilaabi doona inuu halgankiisa ilaa meesha uu gaarsiin doona waa arki doonaa kadibna wuxuu yidhi imaamku mar haddii cumardiin la dilay raggii yaraadoo baqaaga ahayo habeenkii meesha intay ka soo degeen imaamkoodiina la dilay raggaasu la baxsaday wuxuu yidhi rajaca alimaamu huwa wa asxaabuhu ilaa buyuutihim deegaamadoodii bay u noqdeen iyo guryahoodii wa bacda haada markii halkaa hawshu maratay ayaa waxaa kacay buu yidhi waxaa la isku dayey in ninkii abubakar ahaa suldaanka ah oo isna mar la jebiyey isna mar dadkii jebiyey ayaa dadkii dhex galeen waa la heshiisiyey labadii qolo wuxuu yidhi wa bacda haada markaa kadib aslaxuu annaasu waa meeshaan idin lahaa carabiyadu wadaadku marmar ka boodaalaysanaya faacilkii buu isagoo damiiru jamci isagoo ismu daahira buu isu keenay aslaxa annaasu bayna alimaami wa bayna asuldaani wasomaal kadibna dadkii baa isu taagay inay imaamka iyo suldaanka iyo soomaalida isku qarrimay oo balaayadu dhex martay inay heshiisiyaan wadakhala alimaamu wa asxaabuhu cala suldaan markii heshiiskii dhacay imaamkiina ciidankiisa waa la soo noqday suldaankiina harar buu kusoo noqday meeshii baa la isugu wada yimi ayadoo heshiis la yahado markaa agreement fiican la gaaray cala suldaan abubakar wajalasu ayaaman maalmaha imaamu axmed uu magaalada harar joogo uma ana suldaana ababakar naqada alcahda wasulxa kadibna ninkii imaamkaa waxa u muuqatay maadaamuu ciidan badan iyo rag badan oo taageersan haysto ayuu inuu balankii beriya waa u muuqatay kadibna wuxuu yidhi suldaankaasi ballankii iyo heshiiskii lagu heshiiyey ayuu jebiyey waqadara bilimaami axmed wa asxaabahu kadibna nimankaas shirqool buu u sameeyey ama waa dhakray imaam axmed iyo raggii ciidankii tahay oo meesha soo bay heshiiska qaatay waakhada suyuufahum wa khuyuulahum wa aalaatahum wuxuu qaatay
seefahoodii iyo fardahoodii iyo wax laala wixii qalab dagaalo ay haysteen gacanta ku dhigay walaa baqiya maca alimaami min khaylihi kayra halaathati min alkhuyuul imaamka gacantiisana kuma ay harin wixii farda uu watay 3 faras mooyaane wax kale gacantiisa kuma harin inta kale waa laga dhacay وقتل من أصحاب إمام بعد الصلح والعهد أميرا كبيرا هشيس كدبنا إمام أحمد رجس واحد لقد لبيه نين إمام أمير وين واللي يراده عثمان ابن يسار عندنا عثمان ابن يسار أنت صابر كدبنا مركو نمانك عيري وشي ودنا كقاضي شو سمعنا يا وحلا صباح هوليه كهراء وده كأنه خريبه وقطع دور قصصه جرا المسافرين تدعوا ذكر يا خراج وحي صار دعوا لو قلت وكشفته قالدينا وسندن كجلين فرد حوغا يا فلاغا كعسنا وساو جبيه امامكم انت marka 3 faras ku kala soo baxay meeshii iyo ciidanku wixii u haray kadib ninka sultaanka wixii waa aqrab albilad wa dalama ar-ra'iya wadankii buu qaribay dadkii uu maamulayo gacanta ku hayina waa dulmiyay وبقض المشايخ والفقهاء والعلماء dadkii mashaayikha ah diinta xambaarsanaa iyo fuqahada iyo culimadiina waa carageliyo waa ka xanaaqay ninkaas dhaqankiisa kadibna wixii وتوعد الامام بالقتل امام احمد نوحي يري ninka inaan madax ka sareeyo baa ugu balana فخرج الامام هاربا بالليل من البلاد امامku habeenimo ayuu isagoo cararaya ka soo ayuu magaalada ka soo baxay ومعه 3 مدخيل 3 فرس buna wata ووصل الى بيته في بلد يسمى سقعه wuxuu yiri deegaankii uu lahaa ayuu soo gaaray meel la yiraahdo Sakca ayuu yimi oo u jirta masiirata yawmin min buldan suldaan meeshii ninkan uu madaxda ka ahaa meel maalin looga socdo iyo habeennimadii soo dhuntay meeshaas uu gaaray meeshaasna meeshii ninka suldaanka ahaa wadanka haystay uu joogo maalin baa looga socdaa leeyahay wuxuu yiri kadibna halka markuu marayo ayuu wuxuu meeshii kala kulmay wiil uu dhalay suldaankii uu ka soo cararay wuxuu falaqiya gulaaman li sultaan Abi Bakr ibn Muhammad gulaam uu leeyahay waa adoontiisii iyo mid uu kala mid yahay kala garan maayo waa inuu adoon yahay buu badan adoon uu leeyahay sultaanka Abu Bakr uu wadanka uga soo cararay wiil uu leeyahay meesha kula waxa la oran jiray uu yiri yusama Hamdush ibn Mahfuz magacaas lahaa gulaamkaas ومعه 4 من خيل السلطان فأخذها منه ninkaasi wuxuu watay 4 faras oo sultaankii Axmed Gure ka soo cararay uu leeyahay 4tii faras uu ciribta ka ruuta 4taa waa ka qadar iska tagbiilada xoolaha oo dhan ma ku maqan ninkaasi wuxuu leeyahay on banaanka helidayn maaye وخرج الامام من بلد السقعه امام احمد غوري wuxuu ka soo cararay wuxuu ka soo baxay meeshii saqa la oran jiray ila makaan bisoo aaday meel yuqaalu lahu rabaad al-baqar waxa weeye waxa moodaa waxay u dhowdahay weyl lagu xir oo kale weyl lagu xir waa meesha looda lagu xiro meel lagu xir la yiraahdo oo ayuu soo aaday wuxuu yiri wahuwa makaanun kasiiru shajar waa meel cuun ah oo dhir badan وفيه جبل كبير مانع buur weyn oo lagu gaban karo oo dadka dhan ka celinayna waa oo dhufis weyn waa ku yaala meeshaas soo galay وجلس فيه الامام يوما واحدا meesha hal maalin buu joogay وصار الى مكان يسمى سيح meel yiraahdo sheekh ayuu hadana ka sii aaday oo meesha ka sii sheekhaasi wuxuu yiri waa nahrun kasiirun jaari waa wabi weyn oo biyo soconayaan وكان خير الامام 7 maalinta wuxuu wataa 3 uu soo baxsaday iyo 4tii uu ninka ka qaaday adoonka suldaanku lahaa 7 faras boota ووصل اليه امير يسمى جراد ابو بكر ابن اسماعيل kadibna waxa imaamkii ka daba yimi oo soo gaaray nin la yiraahdo جراد ابو بكر ابن اسماعيل فلم يزل oo soo diray suldaanka soo diray waa ciidamo wata soo qabaal yiri isagoo madax ka soo shaqo ninkaas soo gaaray فلم يزل الامام يسير من قريه الى قريه kadibna imaamku wuxuu sameeyaa tuulu tagaa mid kale uga baxa فلم يزل الامام يسير من قريه الى قريه حتى وصلوا الى بلاد هوبيتو الى uu ka gaaray meesha hoobato la oran jiray waa meesha uu ku dhashay ووصل اليه الامير حسين halkaas waxa ugu yimid ninkan Amir Hussein waa ninkii aan idin lahaa kitaabka intiisa badan ibn Shahab al-Jisani wadaadka Yamaniga ahay asagu ka soo naqliyay oo waa qaacida badankeeda taagna waana ninka ugu tala qabeensan ragga aimada ah ama khusuusida waaweyn ee halkan ka qayb qaadan doona Amir Hussein al-Jari baa inuu aan fariyaa loo badanaya وكان معه عونا ninkaasi wuxuu imaamka u leeyimi isagoo gargaar iyo taakula wada farda marag baa wuxuu keenay lama yaqaan ma uu sheegay suldaanku kadibna ninkaasi markuu xoogaaga isla helay oo ninkaasi soo gaaray labada imaam ay iska daba yimaadeen oo nin walba xoogaa taakula keenay ninkii suldaan Abu Bakr wuxuu sameeynaya falam yasil suldaan Abu Bakr yursilu al-ayan ila kulli makan kadibna wuxuu leeyahay meesha hore waa khaldaan u maleynaya garaad Abu Bakr ibn Ismaa'il ragga soo gaaray imaam Ahmed oo isaga dinaciisa ahaa way ma imaam suldaan uu soo diray hadin uu tagana kadibna wuxuu yiri suldaanka Abu Bakr la oran jiray wuxuu soo diray yursilu al-ayana ayaanku waxa way taajuusin buu soo dirayay meel kasta oo imaamku uu tago lahaa ka daba tago warkiisa soo hela ويتجسس الأخبار عن الإمام يريد قتله وحنا وركيسة تجسس ما أرادين يو أخبارته وكرادين يو إمامك تقول دوني إنه دروب فسمع أن الإمام في بلده هو وحنا مغلي إمامك إنه ماشي وحنا السعودة وإنه هو بتجاري فخرج السلطان أبو بكر في عساكره وفرسانه
suldaankii ayaa soo baxay isagoo ciidamadiisii iyo maxaan ku idhahdaa fardihiisii wata wasaaruu ilaa qaryati imaami axmed waxayna soo beegeen tuuladii imaam axmed lagu sheegay waaxraqa buyuutahu ciidan loo bereeri kara ma anigaan muxuu wataa xogaagii amiir xuseen keenay iyo xogaagii yaraayo 7 faras oo la soo baxsaday kadibna magaaladii bay qabsadeen waaxraqa buyuutahu guryahoodii bay gubeen wanahaba amwaal almuslimiin dadkii muslimiinta meesha degana xoolahoodii bay dhaceen fasamaca alimaamu wa asxaabuhu bima facala suldaanu fii qaryatihi imaamku markaa magaalada kuma jirin meel koonaa buu ka deganaa baa la yidhahdaa kadibna imaamkii baa maqlay magaaladiisii waxa ninkaasi uu ku sameeyey ciidankiisii fasaara huwa wa asxaabuhu bileyli min bilaadi hoboto kadibna meeshii habeen buu ka guurayey waa ka cararay isna falam yazaaluu min beledin ilaa beled kadibna wuxuu yidhi magaalo ayay uga sii gudbayeen yuqiiruuna cala suldaan iyagoo markasta soo weeraraya suldaanka iyo ciidankiisii gaadnay waxay galeen maxaan ku idhahdaa jamhadeyn bay galeen suldaankii iyo meeshuu joogo magaalay tagaan waa ka cararaan tanay soo galaan waa ka cararaan habeenkii bay soo weeraraan yuqiiruuna cala suldaani wa yuqiiru calayhim suldaankuna sidoo kale isna weerar iyo weerar celin bay noqotay nin waliba wuxuu isleeyahay qolada kale meel loo kala carara hadda ma jirto meeshu waa la isugu yimi dagaalkaasi saasaa la isugu cadday xataa wasaluu ilaa makaanin yusaama jaadir ilaa imaamku axmed uu gaaray meel la yidhahdo jaadir halkaasuu tegey kadibna wuxuu yidhi markay halkaa gaareen waqad tacibuu min asayr waa noogeen say u cararayeenoo marba ciidan looga soo daba dirayay faraqaduu hunaaka meeshaasay seexdeen fahajama calayhim suldaan ila ninkii ciidan badan buu wataaye weerar baa lagu soo dilaacay waa daba joogaa wacaskaruuhu wakta duhri xilli duhurka ah iyagoo iska hurda ayuu soo weeraray wahum ruquudun iyagoo hurda fantabahuu waa baraarugeen waharabuu walam yadfiruu biaxadi minhum kadibna wuxuu yidhi waa baraarugeen hurdadii bay ka kaceen ninkii suldaanka iyo ciidankiisina hal qof kama ay qaban buu leeyahay kuma ay guulaysanin hal qof ka qabsan kadibna wuxuu yidhi fajtamaca maca alimaami naxwa 100 raajil imaamka waxaa u soo ururay rag hawsha ka xanaaqay oo imaamka in sida loo gelayo u dulqaadan waayey ilaa 200 oo nin oo lug ah baa u yimi و7 من الخيل iyo 7 faras intaasuu isla helay fajtamacuu raggii 200 ahaa iyo raggii hore u watay gidigood waxay ku kulmeen buu leeyahay ilaa beledin yusamma waashiin meel waashiin la yidhaahdo ayaa la isugu tegey facalima bihim suldaan imaamkii ninkii suldaanka abubakarna waa ogaaday inay meesha isugu tegeen xogaa ciidanaho iyo kaalmooyina u helaalay oo wasala ilayhim walam yaclamuu bihi wasaar meeshaasuu uga daba tegey ayagoon war iyo wacaalo ahayn waqutila min caskari alimaami rajulayni axaduhuma kadibna markii ciidankii imaamka halkaa lagaga daba tegey wuxuu sameeyey imaamka ciidankiisa waxaa laga dilay 2 nin axaduhumaa 2 nin midkood min alfursaani wuxuu ahaa ragga fardafuulka ah oo aad u qiimaha badan yusamaa waxaa la oran jiray maxamed ibn ibrahim baa la yidhaha 2 nin ninka ugu qiimaha badan ninkaasaa la yidhaha walaakharu wuxuu yidhi raajulu min sibyaan alimaam nin ciidamada waranlaha ah oo ka mid ah addoontii ama sibyaanta wuxuu isticmaalayaa waa qulaaminta iyo addoontii uu imaamku lahaa ama aabihii ha ka dhaxlo ama saas oo kale weli haddeer waa nin weyn maaha waynu arki doonaa markuu dagaalka bilaabo buuba 24 jira waa raggii uu ka dhaxlay aabihii addoontii uu lahaa labadaa nin baa meesha lagaga dilay fantashara caskaru limaam wajtamacuu kadibna maxaa dhacay imaam axmed ciidankii u haysta waa kala firdheen wajtamacuu fii beledin yusamaa hobotay haddana dib ugu soo noqday intaa waa u googoynayaan wawasala ilayhim amiirun min umaraa'i suldaan kadibna meesha waxaa kaga daba yimi nin horjooga ah oo horjoogayaashii suldaanka ka mid ah oo la oran jiray shambara oo ciidan wata bicaskarin ayuu la yimi laa yuxsaa min arrijli oo aan lugtooda iyo waranlahooda aan la koobi karin wa min alkhayli 14 farisan ciidan lugtiisu uu tiro badan yahay fardahana 14 faras wata ninkaasaa loo soo diray waxa layidhi hoobatuu aaday isagii ciidankiisuna waana kala firdheene halka ugu tagoo soo qabo fasafa alimaamu axmed rijaala kadibna dagaal baa lasoo cadday imaam axmed raggiisii uu safgeliyey oo dagaal u diyaar garoobay wasafa huwa kadalika caskaruhu kii kalena ciidankiisii uu safgeliyey waltaquu waqtataluu qitaalan shaqiiqa halkaasaa lagu kulmay kadibna dagaal baa lasoo caddaysay dagaal kulul baa ka dhacay kadibna waxaa dhacday wankashafa caskaru shambara ninkii shambara ahaa ee suldaanku soo diray ciidankiisii waa dabaduu jeeriyey waa jabeen waqutila shambarana waa meeshaa lagu dilay ninkii hogaamiyaha ah wa akhada alimaamu min khaylihi 12 farasan kadibna imaamku wuxuu ka qabsaday fardihii 14 ka 12 buu dhulka ka dhuf 12 buu ka qabsaday wa haraba 2 labay la carareen facalima suldaan abubakar biqitaalihim wa biqatli amiirihi kadibna ninkii suldaanka ah oo ninkan hogaamiyaha soo diray ayaa wuxuu maqlay in meeshii dagaal ka dhacay ninkii amiirkiisa ciidanka watani la dilay fakharaja bicaskarihi min albaladi ila baladi somaal suldaankii laftigiisa waa soo baxay waxa laala wuxuu ciidan haystay ayuu ula soo baxay maya wuxuu leeyahay ciidankiisii ayuu la baxay oo wuxuu aaday dhankii soomaalida u carar wakhallafa fi lbilaadi 5 min umaraa'i min ahli raayaat waddankiina wuxuu kaga tegey 5 nin oo calamo uu u sameeyey oo mid waliba ciidan uu haysto magaaladii weyneed ee laisku haystay ayuu markuu maqlay shambare waa la jebiyey ciidankiisina dhulkaa lala dhacay kuwa ciidamo haysta oo guutooyina oo 5 ah ayuu meesha kaga tegey isaguna waa carar وكان عدد خيولهم 60 فارسا ورجل كثير كاسي وحو لا تغي nimanka uu meesha kaga tagay wuxuu yiri 60 farasay wateen iyo rag badan oo lug ah imaamku markuu ogaaday suldaanka inuu
بقدين قشي أو مقالة كعري أي في فعلم الإمام أحمد وعسكره بخروج السلطان من البلد ومن بقي من الأمراء وحي قادين ومن بقي من الأمراء في البلد وحي قادين إمام كينو ماشي كعري سلطان كينو ماشي كعري شنطانين يو لحنا كافرت يعيدن بدن لوغان ودن كيغتيو يري ماشي وارديي arrintaasi ka war heleen faxiina idin markaasuu rataba casaakiruhu wasaara ciidankiisa ayuu kala habaystay wixii meesha uga haro dagaalku ka soo badbaaday kadibna waa soo dhaqaaqay oo wasala ilaa qariibin min baladi sultaan alladhi yusamma sagax meeshii uu saldhiga ahayd ee saxkaal la oran jiray sultaanku uu deganaa ciidamadiisu halkaasay soo beegeen facalima bihin amiiru min umaraa'i sultaan kadibna waxaa ogaaday in lagu soo maqan yahay nin ka mid a hogaamiyayaashii amiirka oo ragga calamada waaweyn ragga hogaamiyayaasha ka mid a waxaa la oran jiray ninka abuu yidhi yusamma kuusham أبا بكر إن كان سعرين تكور هذي إن كان سويت يري متزوج على إخت السلطان إن كان سلطان كأبو بكر قبر ولا شيء سأيو قبا وأنا بحيديهم كتب إن كان سويت سمي مركي اللي إلى أحمد بري يعيد كيس وكوسه مغيين يسوون ميوس دقنايا رتب عساكره ووزاره إلى بلد الإمام كتب إن عيد كيس وسمى هذه ماشي إمام كي يعيد كيس ويسود دقنا يوسف فصف الإمام أحمد عسكره ورتب فرسانه وكانوا في 20 فارسا إمام كي عيد كيس وسف جليي قال بنو ديار بدو فرده سنوات لها بيس ما لنت وحي يروح وتا أفر يطوان فرس وطا وعدد خيل أمير السلطان 100 من كان أمير السلطان كأمير كيسنك كسعد وان كان ولا شيء قبينا وطا بقول فرس فصفوا صفوفهم وتقاربوا ووقعت العين بالعين صففك وأسوس دوارين إيشينا إيشي وكل على بدء عيدا عندها استقادة ولي فانهزم كوشم أبا بكر وأصحابه من غير قتال إلى بلد هرب كدنا وحي الكوشم مركو أركنين كان للودين كانوا صحيحين ودقالوا سوى كذا يضع أن دقال وين بدعين أيوم كانت الدبادة كذا وعري كل ما دكت المجال الحرب هيدا يقول ولم يطيعهم أحد من أصحاب الإمام أحمد الإمام أحمد يرقيسنا وغيرها كذب تجنها عرّ المرض ينقع عرّين إلى بين الحياة الغير وصار الإمام إلى ملك إلى مكان يسمى جرير لكن الإمام قلت شيء هذا يوصل عليه بين اللي هذا الجرير بقية لكن هو جرير بالله لما يعني إن إنسان كلا تاي هل كاتي بيسودي واجتمعوا هناك هل كاتي رقيس يردون وكسروا رصدي وتشاوروا فيما بينهم هل كاتي كنت شلين وحين يراهن نهجم عليه في البلد ماشي مقالة دي هرب عيد لفت غير عينه كوه هرنو كدمنا ويعد الله النصر من يشاء كدمنا عدي إلهي وربقوش هاسيو فرتبوا وصاروا إلى بلد السلطان كدمنا عيدا كودي وحبايستي ماشي سلطان كنت جناء أو بوصو عرّي سقع انت كسو عرّي بهرجيم هل كاسو عيدا كي أحمد بيلا سوقلي فوصلوا وقت صلاة العصر في شهر رمضان في رمضان أي ماشا سوقلي يدو صلاة عصر لبسكنيو وكان 37 و900 وحين هاي عيدا كي أحمد بيلا مركا ووطا قال بقول يدور يصدر لين أي وطن ومسكوا أصحاب السلطان في البلد موضعا منيعا عيدا كي سلطان كي مقالة شوقينا وفيسي عرق أي كلام ووصل الإمام إليهم إمام كنا وسوق رسول عيدا كسوطا فرآهم في مكان مانع وعركي وفيس عرق وعن لقود قال الله مكرين وعن لقود شبي كريم يكشلان فانسنا راجعا من قتالهم إلى جانب البلد كدنا القتال وسجل نقضي مقالة دين عيدي بتجي وباتوا ليلتهم ماشى عيدا أحمد بن هبين واقو كبري وكل منهم في مكان لبدي قلوا اللي بماشي هذي بيشوفها أو حبيك على اسم الله إمام كراوي يقول إمام ابن شهاب الجلساني ومن اليوم الثاني معلنتي لبعضهم معلنتي ورسال لوكل بدأ كل شيء صار الإمام أحمد راجع إلى قريته إمام أحمد بن ديال كذي وكذاي مقالة يسوق صنقه فعلموا أصحاب السلطان برجوعهم كذبنا سلطان كي يعلم دي سواحي وقاعدين نمك إلى النقدين فرتبوا عساكرهم وخيولهم وصاروا خلفهم وابا كدوا ينادين بان نمن فريسان يما markay maqleen Axmed Buri ciidanka si gadaal bay isaga noqdeen wadankoodii ku noqdeen ciidankoodii bay soo dhaqaajiyeen isagii bay soo daba galeen falaxiduhum waxay ku soo gaareen fi mawdicin yusama shamnajuud meel shamnajuud la yiraahdo ayaa la isku soo gaaray markaas faxiinay rada calayhi al-imam bi khaylihi wa rajlihi waxa la wuxuu rag iyo fardahayay ayuu ku soo jeediyay waqtatalu qitalan shadiidan kadibna dagaal culus baa meesha ka dhacay maxaa dhacay fanhasama asxaabu sultaan ninkii sultaanka ciidamadiisi waa jabeen wa akhadha al-imam khuyulahum bil asma waxa la waxay fardawateen imaamka gacanta ku dhigay 100 wa tazid boqol iyo wax dheeraad ah وقتلوا جماعة وبدنا وكلاين وانتن الإمام بعسكري إلى هرب إمامكو إذا ما دي نكو كوي كدب يجيبيه يسقون لوين يأوتوس أيوه هرب صوق لبا وملك البلاد ودن كنا قعنتو كدغي وأقام الحق وحي حقها أيو توسيي وأسال المنكر وحي دين تديدي ودنا واسوليي وساح المنادي من دواقيي أيا دواقي وحي كل أحد يلزم بيته يولي بقولي سهاجوغو ودن كدولد باكر لا توي وكل على عادته نولي بدقن كيسي نظام كيسا كنو لاادو لا تخافوا ولا تحزنوا أنا بغنينا مروقية ولا إسكايل عليه ولا ضير على أحد من الناس واحد بقى تأقف لقارتين أنا مكرو ولكن سلطان كي ماشي واكعر لمويانه ولي ونولي هايو لكن هو تقول وادي مية إمام كوحي فخرج الإمام إلى أدراف البلاد إمام مركو هرق عنده كل جاي نيجي عيدن كي سوقا ود بنان الشريعي وحول دقاقي dadkii muslimiinta ahaa waddan ee dhulka deganaa
wixii dhibaatooyin oo kala haystay inuu xalliyo wuxuu yidhi fakharaja alimaamu ilaa adraaf albilaad dacalladii magaalooyinka ayuu u baxay liyuslixa araciyata walmasaakiin dadkii maamulkiisa hoos sugay inuu hagaajiyo oo uu nidaamkooda islaax ku sameeyo wakhalafa fi lbilaadi amiiran min taxti waddankiina wuxuu uga tegey nin asaga ka hooseeyo oo amiir ah وعمرت البلاد واستوت وضنك واعمل مي وانا هجاك سناتي فعلم السلطان بخبر الإمام سلطانك عراني وحو مغلينك إمامك أوضي أدونك إنه سكت بريدي وأنه استولى على بلادي وأخذ خيوله إنه فرده سيدعي إذن كي سيشبيي وضنك عنده كل شيء فتجهز السلطان إلى الإمام وجمع حرم يو إذا مدي صور هذا المرلبات بسور قال عليه إذا مدي صور رصدي وجيش الجيوش من بلد الصومال وغيرهم إذا ما بدنا يكسر رصدي وضنك الصومالي يوكوا كله واجتمعت معه خيول لا تحصى وعساكر كثيرة وحنيك يسوي وكسر رصدي وسكان صدي فردو أن ترى لهين إذا ما أذو ترى بدن فوصل إلى قريب من الإمام كدنا إذا كاسوي حلسه دقي إمام كميش في دقنا ميل ودو